warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax la sheegay in uu ahaa mid isnidaamin ah oo barqanmadii maanta ka dhacay bar control oo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ay ku lahaayeen ex control afgooye ee duleedka Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegay in jugtiisa inta badan laga maqlay xaafadaha iyo degmooyinka magaalada Muqdisho iyadoo la tilmaamay in uu ahaa gaari nooha ka oo markiis hore ay ciidamada ay ka shakiyeen isla markaana laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Ka hor qarax intuusan dhicin ay goobjoogayaal waxay tilmaamayaan in gaariga ay ciidamada amniga ay rasaas markii hore ay ku rideen kadibna markii laga shakiyay sidaasna markii dambe uu ku qarxay. goobjoogayaal ayaa raadiyaha Simbe magaalada Muqdisho u sheegay in qaraxa ka hor ay rasaas ay dhexmartay askarta iyo sidoo kale ragii saarnaa qaarkood ay isaga baxsadeen goob. Inta la xaqiijiyay qarax ayaa waxa ku geeriyooday darawalkii gaariga askari ka tirsan ciidanka booliiska oo ku agdhawaa goobta qarax ka dhacay iyo sidoo kale dad kale shacab ah dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray. muddooyinkii ugu dambeeyay hay'adaha amniga booliiska Soomaaliya waxa ay juhdi dadaal ay ku bixiyeen sidii ay u sugi lahaayeen amniga caasimadda Muqdisho iyadoona qaraxan uu qayb ka yahay qaraxyo dhowr ah hay'adaha amnigu ay sheegeen inay ka hortageen ka oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan ex control afgooye oo ah goob bar control ah.